munaasabada xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah maamul goboleedyada dalka odayaasha culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Warshiiq iyo deegaanada hoos yimaada ayaa lagu qabtay xarunta degmada Warshiiq ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha hore degmada Warshiiq Axmed Xuseen Axmed Shiidka oo xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ayaa ka hadlay waxyaabaha uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay waxa uu qabsoomay wax badan alxamdulillah ilaahay mahadiisa waxa noo qabsoomay waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxdii naga dambeysay ee iyagoo noo fududeynayeen iyagoo ugu mahadcelinaynaa iyo shacabkii wanaagsanaa ee uu yimid oo ila jaan qaaday ila shaqeeyay iyagoo ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha cusub degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Xasan Maxamed Axmed ayaa ka hadlay qorshihiisa iyo waxyaabaha uu qabanayo dib u heshiisiinta aan ka bilaaw doonaa iyadoo oo loo baahayo degmada iyo tuulooyinka hoosmaada ee ka jiro khilaafyo beelaha wada degan waxaan rabnaa inay goluhu iyo wasaaradda dib u heshiisiinta iyo hay'adaha ku shaqo leh inay sameeyaan dib u heshiisiin waarta agaasimaha waaxda dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Yaxya Umar Xirsi iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ahna howlwadeenka xil wareejinta Axmed Muxiidiin Shaata ayaa kula dardaarmay mas'uulka cusub in uu dardargeliyo horumarka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe in maamulka cusub oo golaha deegaanka oo isleeyahay dad dhalinyaro ah ayay u badan yihiin waxaan sabab u ah Soomaaliya maanta dadka bulshada Soomaaliyeed ee ka yar da'da saddex sano boqolkiiba 70 ayay ka dhigeen bulshada waxaa la gaaray maamul rasmi ah oo la doorto oo golo deegaan leh guddoonkeena ay doorteen taariikhda markii 22 bishii Agoosto waxaan leeyahay Cornel Shiidka wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka soo mid noqdo golaha deegaanka xildhibaan Mina Xasan Shibis oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku amaantay maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle doorka uu ka qaatay hirgelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Warshiiq haddayna sabri lahayn ay habeen iyo maalin maaragtay meeshay u geed uga fadhiisato ee ag fadhiisa lahayn suurtagal ma naqan lahayn inay hawshaan dhaqan gasho waxaan rabaa odayaasha dhaqanka reer Warshiiq wasiirka dawladda Hirshabeelle ka tirsan iyo dhammaan inta hawsha qabatay waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo inaysan iloobin quwatadii gabdhaha wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa ka hadlay horumarka gobolka isagoona tilmaamay in maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle uu dardargelin doono mashaariicda lagu horumarinayo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe maalintii anaga golaha deegaanka inta lagu doortay maalintii ku xigtay waxaan la fadhiisanay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay aniga iyo madaxweyne Waare waxaana kala hadalnay oo ugu horeeyay waxay ahaaday jidka degmada Warshiiq Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho